sanad walba Soomaaliya marna waxay la daaladhacayaan abaaro iyo biyo la'aan ka dhashay abaaraha dalka ku dhufta xilliyada roobkana Soomaalidu waxay la daaladhacayaan dhibaatooyin ka dhasha fatahaadaha ay webiyadu sameeyaan ama daadad roobka ka soo rogmada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan sanadii ugu dambeeyay waa ugu darneed 100,000 oo qoys ayaa ka barakacayay waxaana sidaas oo kale ka dhalanaya khasaare burbur hantiyadeed ah iyo sidaas oo kale mid nafeed sanadkan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waa ka kabatay mana haleelin fatahaadii webiga waxaana arintaasi suurto geliyay dadaal ay sameeyeen dadka ku nool magaalada iyo sidoo kale aqoonyahanka deegaanka soo jeeda ayagoo kaashanaya Allah sidaas oo kalena garab istaag weydiisanaya dadka ku nool magaalada haddaba injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo loo yaqaano injineer Foodi ayaa weydiiyay sanadkii la soo dhaafay waxyaabihii uga qabsoomay dadaaladii ay sameeyeen kaasi in uu wax u noqon karo guud ahaan gobolada kale ee dalka amaba ay suurtagal tahay in laga fulin karo sida Beledweyne oo kale biyaha looga celiyay sanadkii hore sidaad la socotaanba magaalada waxaa qaxday 10% waxay sanadkii hore August iyo September fatahaadii ahayd ay biyo soo galeen meesha la yiraahdo Hiirbardo oo biyaha ay meel ka soo kortalaabeen alxamdulillah webiga markuu noqday sanadkii hore waa laga howlgalay shaqo badan laga qabtay sanadkii hore marka sanadkan meeshaas waxba kama soo talaabin waxaa kale intoo la qabtay sanadkan February waxaa la furay kii waraaboole oo muddo 30 sano ah wax dayactiraan oo guddiga fatahaada ay sameeyeen waa 5 kilomitir average oo balaana waa 40 mitir 1 mitir iyo barna hoos loo dhigay 2 mitir iyo barna buurar la sameeyay marka waraaboole sanadkan biyo badan oo bixiyay waxaana ka badbaaday xaafado fara badan way marka dhowr maalmood ka hor waxaan u maleynayaa in la yiri webiga ayaa magaalada meel kamid ah ku soo fatahay waliba xaruntii gobolka ama madaxtooyadii wadooyinka galab buuxiyay maxay ahayd marka runtii sanadkan meelaha la sheegayo markii loo fiiriyo sanadadii hore waa wax aad u yar sanadadii hore meelihii laga barakacay sanadkan lagama barakacin waxaan dhihi karnaa boqolkiiba hal umbaa muqaayataay waxa dhaceen laakiin magaalada inteeda kale waa la deganaa sanadkii hore waxaa laga barakici jiray howlwadaag meesha la yiraahdo doonsuulo waa laga barakici jiray howlwadaag meesha la bacaada waa laga bixi jiray kutiimbo waa laga bixi jiray waxaa laga bixi jiray meesha la yiraahdo dhagax jibis waxaa laga bixi jiray in coaching xaafado badan laga bixi jiray marka fatahaadan hadda oo aan isleeyahay fatahaadii hore ee la mid ahayd ama ay ka sareysay oo biyihii ka soo baxay aad aragteen meesha ay mareen wax ka barakacay magaalada ma jiraan walow ay jiraan in xaruntaas ay wax ka soo baxeen sanadkii hore dayactir waa lagu sameeyey marka insha Allah meelaha sarkotiriska insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadda la og yahay waxna laga qaban doono oo magaalada boqolkiiba 100 aan ay degantaa sanadkan laga barakeen waa maasantaa wax wanaagsan weeye laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ma reer Beledweyne iyo reer Hiiraan ma ayaga isu tashaday oo hawshan qabtay ma dawladda xamaal gelisay ma Hirshabeelle ama hay'ad kale wax ka heshay hawshan yaa weecida qabanaysa hawshan oo sanadkii hore la bilaaway sida la socotaan gudoomiyaha guddiga fatahaad Xaaji Ismaan Dhagaxow iyo dadkii shaqeyn dhowr jeer ay ka hadleen lacagaha meelaha uu yimaado dhowr jeer bay ka hadleen anigana waxaan u qaabilsanaa technicalka engineerkii oo design-ka sameeyay oo shaqada qaabka loo qabanayo ee daraasaadka sameeyay aan ahaa marka wixii dhaqaale ay heleen ayaga u baa mar walba telefishinka idinla wadaagayay marka waa xoolo ay Soomaali bixisay waxa meeshan lagu qabtay ma ahayn xoolo dad kale ka yimid Soomaalidu waa dad wax bixin yaqaana wax qabsan yaqaana oo howlkar ah marba hadii sidaan ay u fududahay in waxan xal loo helo maxaa sababaya ayaa isleedahay engineering dhowr sano dadku ay wajahaan dhibaatooyin culus oo ka dhashay fatahaadaha iyo daadadka roobka ka dhashay runtii waxaa jirtay dadkan Soomaalida waa dad waxtar leh mana og hadii wixii ay bixiyaan gacan sax ay marayso
wax ka sii badan bixinayo waa dad aad u qalbi fiican dadkaan kala leeyahay waa dad aad u wanaagsan oo aad aragtaan meel walba ay ugu horeeyaan marka waxaan isleeyahay waxaan jirin cid u istaagtay oo ama xagga community-ga ah hadda markii guddiga fatahaadda beledweyne ay istaageen ay fiiriyeen waxa u soo baxday in u baahan dad expert ah oo shaqadan yaqaano marka aniga oo gobolka u dhashay ay la soo xiriireen anigana waan u tagay waan la shaqeeyay naqshadii oo dhan waan la sameeyay assessment-ii waan la sameeyay marka alxamdulillah marka waxa meel gaabiskan waxa waaye qofkii aqoonta u lahaa oo la weydiin lahaa ubaa markii hore aan meesha joogaan isleeyahay haddana alxamdulillah shaqooyinka la qabtay waa shaqooyin ilaahay subxaana watacaala u fududeeyey meeshii loogu talagalayna laga qabtay marka haddii soomaalida oo dhan ay istaagto oo meelaha fatahaadaha ka jiro ayaga u istaagaan oo ay raadiyaan dadka khibradda leh ay shaqooyinkaas qaban karo waxaan isdhihi karaa wax badan soomaali waa ay qabsan karaan kaliya maaha fatahaadaha iyo mas'aladaha Soomaalidu haddii isku tashadaan oo nabadoodiina ka shaqeeyaan oo ganacsigoodii iyo dib u dhiskoodii ka shaqeeyaan wax badan waa qabsan karaan dabcan wax badan ay qabsan karaan oo hadda fatahaadaha beledweyne khasaaraha ay dhalin jireen magaaladaas waxaa lagu qiyaasa dadka degan 500 oo wax ka badan waxaana barakici jirtay 90% markay barakacaan 250 kun ama 300 kun markay buuraha aadaan qoyskii meequu ku guuraa qoyskii waxa lagu qiyaasay 300 inuu ku guuraa daawuu ku guuraa daawuu ku soo noqonaa tango gala guri markuu ku soo noqdo boosaneerkii uu sameynaa guriguu sameynaa balaa $300 waxaad ku dhufataa 300 kun oo qof oo barakacday waa meeqa milyan waaye taas waxaa sii raacday ganacsigii dukaamankii xiran baqaaradii gilgalayaan maqaari oon shaqaynaynin korontadii oon shaqaynaynin meeqa milyan halkii mar beledweyne ku khasaari jirtay waa lacag aad u fara badan tan kale waxaan rajaynayaa inay jiraan guddiyo kale oo ka dhisan gobolada